رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan walaalayaal isku baraarujin doonaa saddex qodob. qodobka koobaad waxa uu yahay nadaafada ama dahaarada. maadaama aynu nahay dad muslimiin ah waxa laynooga baahan yahay inaynu noqono dadka kuwa ugu nadiifsan ee ugu quruxda badan leh. سيدنا النبي محمد النوشق عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. إلهي هو قروح بدن يهي قروح ذا هو وجعليه وحا جري حنون ففضران حنون كيس ذا الشيء يولو سيتر جري ما وضع لمعنين وحينوغو ترقن لي قدب ككوبات إن نسكو براروتنا النظافة دحوجين تيدا حدي أيتاي قريها إنو تشوغنو ونظافتooda la xoojiyo galin hore galin dambaba sidaas la mida almadaaris ama malcaamadihii oo iyagana la furay oo ardayda ay dhigtaan galin hore galin dambaba in ardayda iyo madrasadaba nadaafadooda laga warqabo oo laga warhayo say ilaahay noogu sheegay fil quraan alkariim inna allaha yuhibbu at-tawwaabiin wa yuhibbu al-mutatahhiriin. ilaahay dadka waxa uu jecel yahay kuwa isaga u soo noqda ee u toobad keena iyo kuwa nadaafadooda iyo dahaaradooda ilaaliya. meelaha la doonayo nadaafadooda inaynu ilaalin kor u qaadno waxa kamid ah meheradaha ama maqaaxiyaha aynu isugu nimaadno ka dhalinyaro ahaan iyo meelaha kale lagu qaylaba galin hore iyo galin dambaba. kadalika waxa la mid ah almataacim meelaha wax lagu cunaayo oo kadalika alfanaadiq iyo hoteeladii ama kuwa la seexda ha noqdo ama kuwa lagu cunteeyo mid yar iyo mid weynba nadaafadooda in la adkeeyo oo laga shaqeeyo oo heegan loo ahaado si xanuunada ina soo maray ee inu soo maqalnay inta qof ay galaafteen ama ay dileen ama ilaahay uu sabab uga dhigay mar labaad taas oo kale aanayna soo marin. wixii dhacana waxa loo baahan yahay hadaynu nahay ummad muslimiin inaynu ka faa'iidno duruusun wa cibar casharo iyo waxyaabo aynu ku cibro qaadano. sidaa darteed nadaafadu waxay ku xidhan caafimaadkeennuna waxa uu sabab u yahay inaynu sii noolaano nolol qurux badan. sidaa darteed dhammaanteenba aynu ilaalino goobaha aynu ka soo warannay nadaafadooda iyo ka warhayntoodaba. qodobka labaad ee aan doonayo inaynu isku baraarujinaa waxa weeye akhdu alxadar. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xanuunka keena isagaana dadka ka kor qaada. amman yujiibu almudara idaa dacaahu ويكشف السوء. سيدا درتيد waxaa inooga baahan yahay hadii aanu nahay ummad muslimiina inaynu inagu mar walba xadar iyo digtooni aynu ku sugnaano xanuunada la sheegayo iyo qeyrkoodba inaynu mar walba noqono dad ka gaashaanta imtithaalan liqowli Illaahi tacaala yaa ayyuhalladhiina aamanuu khuduu xidarakum. dadkii iimaanka laga helayo qaata digtoonidiina oo aynaan isdhigan ilaahay oo kaliyana aynaan tala saarane ilaahayna aynu tala saarano asbaabtiina aynu la nimaadno sida ninkii uu ku lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iqilha wa tawakkal cala allah hasha xidh oo dabar ilaahayna tala saaro. qodobka saddexaad aan doonayay kelmadeyda inaan ku soo khatimaa waxa weeye qofka muslimka waxa laga rabaa intuu barwaaqada ku jiro caafimaadkana uu haysto ilaahayna subxaanahu wa tacaala nicamka faraha badan ee uu na siiyey kuwa gaarka iyo kuwa caamka ee dadkoo dhan baynu la wadaagno waqtiga inuu rabbigii garto oo calaaqada iyo xidhiidhka uu rabbigii la leeyahay wanaajiyo uu kordhiyo. saa darteed ayaa nebi maxamed wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam tacaraf ila allaahi fi arrakhaa'i yacrifka fi shidda. garo rabbiga waqtiga raynraynta iyo barwaaqada iyo baraarahaad ku jirto si adigana rabbiga ku aqoonsado waqtiga dhibka iyo shiddada iyo xanuunku uu ku haysto. wa ki mar labaad nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ihfaz illaaha yahfazka. ilaahay xifdi oo ilaali xuduudiisa intaad waxa weeyaan caafimaadka qabto miyirkaaga qabto oo
amniga ilaahay subxaana watacaala ku siiyey aad ku nooshahay si adigana hadhow ilaahay u ilaaliya naftaada caafimaadkaaga iyo jirkaaga iyo noloshaadaba sidaa darteed walaalayaal haddii aynu doonayno nolol qurux badan inaynu ku noolaanno ilaahay subxaanahu watacaala waa inaynu garanno wakhtiga barwaaqada aynu ku jirno si hadhow inagana ilaahay subxana watacaala wax fara badan oo dhibaatooyinka adduunyo iyo masaa'ibta ilaahay uu qadaraya ay noo dhaafto wallahu subxaanahu watacaala aclam.